بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سوماليين ميل baadiyo ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cibaado suban iyo bashbash iyo barwaaqo in ilaahay nabdeeyo caafimaad taama bashbash iyo barwaaqo aan dhamaan Soomaaliyeed gaarsiiyo insha Allah waxaan ka hadlayaa barnaamij gabadhii Soomaaliyeed ee lagu kufsaday magaalada ee Muqdisho بيمكن كوسو كنت لكن واحد لو كوسدي بوساسو سيده warbixinta ugu soo gaadhay waxana kufsaday sidaan warbixinta ku hayay fariinta nin wuxuu yahay waatan gabadhii already barnaamijkeena insha Allah bisi guud galeenaaba gabadhana ka soo siinayso warbixinta sameeyay khadka ka culus oo qabanay marmaleeya كويسمي سمير وان كسو قبتay gabadha Samiira waxay la joogtaa gabadha xanuunsan oo ku jirta isbitaalka Dugfeer waxaana laga yaabaa inuu saxadku u shaqeynayna ama ku culusay salaam alaykum walaashay Samiira waan ku salaamay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cibaado sugan adiga iyo walaashay maxay idin soo gabadh magaceeda فايسة والله فايسة محمد adiga iyo Faaiisa caafimaad iyo cibaado sugan baan idin rajeynayaa in ka war Faaiisa xaaladda tahay فايسة والله هدول على كعاف مع هانتير مقال كده وسكرون هاي لكن كمر الأهان قدرين كرت قف دبعت كلنت إني تاي صح walaashay aad baad u mahadsantahay arrinkaad ila soo socodsiisay runtii wax laga dhiidhiyo weeye wax la qaadan karana ma aha waxaan doonayaa bulshada Soomaaliyeed ra'yi ahaan iyo fikir ahaan anoo garanaysaa inaan la wadaago jecel deegaan ahaan ka soo jeedo deegaanka ibtiladu ka dhacday si wanaagsan inaan la wadaago arrinka waa marka waad ilaahda ma iska leh waa marka labaad oo adiga ma hadda aan leh oo garanaysaa barnaamijka ila soo socodsiiyay waxaan doonayaa marka iyadii inaan la hadlo aan dhowr su'aaloodna weydiiyo afkaar فايسة كوي أدنى فايسة يقولي يقعد فايسة السلام عليكم عليكم السلام فايسة ولا شباب السلام عليكم وفاق هذولا waxaan ku rajeynayaa caafimaad إن شاء الله ولا العمين bulshada Soomaaliyeed badan baa ku daawanaysa fariinta tan oo gaari doonta insha Allah صح waana bulshada isugu jirta odayaal iyo maato iyo hooyooyin iyo shacab صح xaaladda ku dhacday waa xaalad ku soo noqnoqotay deegaankeena iyo gabdhaheennaba صح wax loo dul qaadan karana ma aha marka baraarujin ay noqotaan rajeynaya iyo gabdhaha dambe oo soo socdana loo faa'iideeyo su'aasha koowaad aan ku weydiinayo walaashay Muqdisho hadda imisaad joogtay صدح بري ورا saddex bari oo qoraad joogtay boos meesha la yiraahdo xaaladaada caafimaad waa sidee هذا حواء وفيعاني وعلى شهر ودعمه haye عافمة فينا دريبية ibtiladu waxay kaaga habsatay magaalada la yiraahdo Boosaaso ها haye bal adoo wax yar nooga faal bixinaya goobtii iyo xaaladda iyo sida ay wax u dhaceen ninku waxaan maqalnay inuu ahaa nin askari ah صح واحد oo ciidamada Puntland صح ciidamada waa ninku walaal والله إذا ما قان أنك هو إنه هاو ملا صح سن هاو ملاين okay magaciisa oo saddexan ma garanaysaa أنا على الفواتك بوقانا Cabdiqaadir wax lagu daro ma garanaysaa مكرمة laakiin nin waxa jiray magaciisa oo saddexan sheegay واجران ها تدمر السودان قرنيتين أني القاتل بسوقانا laakiin magaciisa oo saddexan waa magaca la sheegay meediyaha ku jira ها waa hubaal waa magaciisu waa ka ها xaalad caafimaad Boosaaso ma kugu suuroobi weydayo adiga imika Muqdisho jooga bal ka falo adigu arrinka caafimaad ee halka Muqdisho lagu keenay hadda والله أني بوساسو إن بدنا اللي يجوا هاي marka xabadii ku dhacday aniga dad si fiican wax uga qabtay ma jiraan dawladdu waxba kama qaban inkastoo ninku nin dawladda ka tirsan buu ahaa dawladdu wax ka qabato way ahayd bas waxba kuma qaban dawladda iman aniga way yimaadeen waa jiraan laakiin waxay ka qabteen haba yaraatay ma jiro marka aniga markuu namrigu dhacay waxa dareemay in meesha camal Soomaali inaysan dad ahayn ayaa awaaday aniga macnaheedu waxay qabaneen haba yaraatay ma jiro marka aniga baadi caafimaadkayga waxba ku sareyn waaye intana la keenay marka hadda waa fiicanay ma sha Allah waxaan ku bixinayaa in macnihii aniga taa way u dhacday alxamdulillah ilaahay baan ii qoray wax dhibaataan oo ma arko balse waxaan ka falabeen gabdhaha soo socda Soomaaliyeed inaysan ku dhicin ayaan ugu digayaa haddii ku dhacdana dawlad ma jirto siiyo Puntland dawlad ma jirto
qofka haddii wax ku dhacaan wax loo qabanaya haba yaraatee ma jirto. waxaad ii sheegtay hadday ninku inuu ahaa nin telefoon aad iska maqli jirteen dabadeetana uu ku yimi oo gaari isagoo wata uu ku yimi bal arrinkaa wax yaroo faalla ah walaashayga bi adigoo raalliga aniga ninka waa la sheekaysan jiray weliba in badan ismaana aqoon wax yar baa isnaqaanay. waa ii yimi ana guriga jooga isagoo gaarigiisa wata wuxuu dhahay iisoo waa sheekaysananaa waxaan ku yidhi abuu macaan aniga kasoo dega gaariga ma ani wax yar baa kula sheekaysanaya daqiiqadaa kula sheekaysanaya marka gaariga daaqada xidhay baa wiilo cararayba marka aan magaalada xoogaa ka yara wax ka ii wadaa saa u lahaa aniga markuu meel geeyey inuu kufsado damcay waa la dagaalamay markaan la dagaalamay xabadii ugu dhuftay aniga markuu xabadii ugu dhuftay waa cararay isagii xabaddu xaggee bay kaaga dhacday waa la xidhin hoosteeda kaga dhacday. marka dad shacaba oo reer Puntland oo arrinkaa ka dhiidhinayo ku yimi ma jira waxa kaaga yaraata ka geemi jira aniga waa ii yimaadeen dad iska shacaba oo dee ka naxay waa jiraan laakiin aniga macnihii waxa dawladda haba yaraatee ka naxda ii timi jiraan. maxaa dareentay markaad aragtay adigoo magaalo Soomaaliyeed jooga oo dhibtaas kugu dhacday wax kugu damqanayana aan haysan aniga waxaa dareemay Soomaaliya inaysan joogitaan lahayn dawladna isma jirin baan dareemay. boosaaso waxaad ii sheegtay inaad 2 bilood joogtay haa ani garow waa kusoo xoogaa joogay ilaa 3 sano garow joogay boosa 2 bilood baa joogay marka boosas fiican ma kala aqoon ba wax yar baa joogay. sax ka hor boosaaso magaalada baad ka timi garow yahay soo ani ka hor waxaa ka yimi gobolka Wardheer degmo hoos timaada oo la dhaho Qararo. sax bacdi garow inaad hooyo iyo la joogtay aad buu hooyo la joogtay aniga tuuladaasaa joogay marka hore waa ka imi hooyo xaggaas deganeed adeer baan u imi adeer baan la joogay guri adeer waa ka soo tegay boosa anoo sida ka laabatay waxay ku dhaceen siday ku dhacday magaalada adeer ugu timi magaalada baa intaan booso iman adeer garow joogay aan la joogay ani booso 2 bilood bis baan joogay anoo sida ka laabatay bay noqoday ku dhacday wax yar joogay markaa adeer marka xaajada tan iyo xaalada tan dhacday wuu la socdaa soo ma wuu la socdaa marka habeenkii la wacay subaxii uu yimi isaga ka waran imika reer Puntland nabad iyo nolol bay doonayaan adoo dulmiga inta leeg lagu geystay Puntland nabaduna waxay ku timaadaa iyo nolosha dadka masaakiinta ah iyo hablaha la daryeelo dhib iyo cumaan iyo colaadna laga ilaasho maxaad ugu baaqaysaa adigoo fariin ahaan u diraya madaxda iyo isimada Puntland amnigooda iyo noloshoodana u tilmaamaya inay ku jirto dadka maganta ah oo la daryeelo maxaad u tilmaamaysaa waxa u tilmaamaya ani tan way ugu dhacday balse inay ka feejignoodaan teeda kale aniga qof waxay ku sameeyay qof shacab maaha in askari ay ku sameeyay askarina dalka wuxuu qabto ayaa diriiska loogu xiray diriiska laguma xirin baaskoodana laguma dhiibin in qof bilaadana ku dhufto marka ani dawladda eedeynaya in intii baaskood ninkaas waxa kugu anina marka askari ay dhufto ninka shacabka iyo nolosha dadka ilaalin lahaa ninka dawladda amniga dadka ilaalin lahaa ayaa adigu handaday marka dawladda ana waxa ka codsanayaa dadka inay isaga soo dhiibayaan qoryaha dawladda aan siin jirin anin baaskoolada u soo dhiibeen baaskoolada dadku difaac baa leeyahay gabar Soomaaliyeed ku dhufa laguma dhihin sax marka aniga tan ugu dhacday balse waxaan ka fog inay iyagu amnigooda adkeeyaan Soomaaliya aysan joogitaan lahayn ee sidaas u dhaamaan ayaan ugu baaqayaa aniga walaashay xaaladda dhacday waa xaalad xun ibtiladana waxa geystay ninkii shacabka ilaalin lahaa matari lahaa iyo amnigooda iyo noloshooda ilaalin lahaa markii deegaankaagii iyo dalkaagii xumada iyo xanuunka aad ku dareento dan waxaan filayaa inaadan dal shisheeyana aadan nabad iyo nolol ku dareenteen haddii ahaato Liibiya haddii ahaato qurbo kale haddii ahaato Yaman sababtoo ah meesha dhibtaas iyo ibtiladaas kugu soo gaadhay waa deegaankaagii waa dalkaagii dadka ka dhiidhii waayey oo dhibaatada ka hadli waayena waa u sheegaya iminkana way gaari doontaa insha Allah fariintaas madaxda iyo isimada iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka oo garanaysa reer Puntland ibtila idinku habsanaysa gabadha xaqeedii hadii la siin waayo amniga iyo nolosha iyo nimcada Puntland tal wallahi alladhi la ilaha ghayruhu wallahi mayso hadii ximaarka loo soo qaban waayo gabadha oo maxkamad la soo saari waayo wallahi baan nabad iyo nolol u jireen bank nabadda la sheegay ilaahay wuxuu idinku siiyay wax kale ma aha waa dadka masaakiinta ah oo xaqooda la siiyo dumarku inay ka badbaada inagoo isqabana weeyaan gabadhan ibtilad markay ku dhacday boosaasay ahayd meesha kaga dhacday xaaladeedana waa laga aamusay oo laga gaabsaday wax ka hadlayna ma jiraan aniga walaashay boosaasan ka yimid arrinkaagana wallahi billahi tallahi baan uga seexan
ilaa xalay waan usoo jeedayo samira aan wada hadalnay wax la qaadanaya mana maaha malaayiin dhalinyaro ah oo soomaaliyada reer boosaaso ahna sidaas uga dhiidhiyayaan dantayadaa ku jirta inaanu ka dhiidhino caruurtayadaa noo badbaadaysa hooyooyinkayagaa noo badbaadaya idinkaa noo badbaadaya ma haddii waxa aanu daawano aanan ka dhiidhiyan aan ceebta iyo xaaladda xun la sameeyey aanu u qosloo ka aamusno farxadii nolol iyo liibaan nooma taal annagoo ilaahayna ka baqayna lafahayagana u baqayna arrinkaa waxaanu leenahay waa in lasoo qabtaa ximaarkaa gabadhaa godobtaa ka gala waa in lasoo qabtaa wallaahi alladii laa ilaaha kayruhu puntland waa ololaysaaba